habka ugu fudud ee qoraal ku qoran luqad kale aad ugu bedeli lahayd luqadda Soomaaliga ayaan isla arkaynaa maanta. Qoraalkaas PDF ha ahaado ama Word ha ahaado farqi ma kala laha. Pages fara badan ha ka koobnaado ama ha yaraadaan. Waxaa u bedeli kartaa luqadda Soomaaliga. Aadna ku anfacaya haddii group 5-ka ama America meelahaas aad rajaynaysid tusaalaan. Marar qaar waxaa dhici karta in lagu soo diro warqad oo PDF ah oo ku qoran luqadda Englishka kadibna aad u baahato haddii luqadda aad garanaynin in qof kale uu ku fasiro. haddii videogan si fiican u daawato tallaabooyinkan aad raacdo inuu qof kuu fasiro uma baahnid. Marka isla aragno waxaan samayn doonaa. Hadda waxaan ku jiraa Google Chrome-ka ayaan ku jiraa. Google Chrome-ka ayaan ku jiraa saa ujeedo. Then waxaan taabanayaa meeshaan ay qoran tahay Google Apps. Kadib waxaan ku dhufanayaa halkan Drive ay qoran tahay. Then marka Drive-ka ku dhufto waxaa imaan doonaa halkan ay qoran tahay New markaan ku dhufto kadib waxaan leeyahay File Upload. File-ka aad rabtid in lagu fasiro ayaad soo qaadanaysaa. Anna midkaan aan rabaa. Kadib waxaan leeyahay Open. Upload aan leeyahay. Kadib saa ujeedo halkaan soo geli doonaa. Ardaydan waa anfaca sidoo kale videogan haddii lagu soo diro assignment English ah oo aad u baahato inaad fasiraad in lagu fasiro halkaan waa ka isticmaali kartaa. Then laba mar kale click leedahay marka waa furisid. Laba mar kale click si. Kadib sidaa markuu u furmo halkaas saa ujeedo waxaa kugu qoran Open with Google Document. Sidaa ujeedo qoraalkii PDF-ka halkaan uu soo galay. Qoraalkii PDF-ka waa kana. Waxaan rabaa markan luqadda Soomaaliga u bedelo. Waxaan samaynayaa tools aan ku dhufanayaa marka koowaad. Kadib waxaan leeyahay Translate Document. Then halkaan ay qoran tahay Choose Language ayaan Soomaaliga ku qorayaa. Luqadda Soomaaliga rabaa in loo bedelo. Then waxaan leeyahay Translate. Waxay raasaysaa. Then waa ka qoraalkii oo English ku qornaa waxaa loo bedelay luqadda Soomaaliga. Saa ujeedid. Okay. waxaan is leeyahay aad ku anfici doonaa. Haddaan ugu cusubtahay nagu soo bir. Repost videogan laftana saar siin share insha Allah sidoo uu gaaro. Markaas sidaan aad u bedelato oo aad luqadii Englishka ka bedesho qaabkee marka u heli kartaa qoraalkan. Waxaad tagaysaa file kadib waxaad ku dhufanaysaa download. Kadib qaabka rabtid in lagu soo downgrade ayaa dooranaysaa. Hadda waxaan rabaa PDF. Then qaybtan kore ayuu soo geli doonaa. Waa kana uu i diyaarsan yahay qaabkaas dibna waan la digayaa. Waa ka marka qoraalkii ilaa hadda waa ilaa dhowr page waa saa ujeedo waa 8 page. Marka haddii tiro badan yahay 12 ay yihiin qaabkan caadi markaas waa ku fasirin kartaa. Waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iiday. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.